السلام عليكم. قواعد الفقهية حلقة دي سديدات. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. فإن تزاحم هدي إسعريريان عدد المصالح مصالح ذا الترضوضة هدي إسعريريان يقدم وحال هرمرينيا الأعلى مد سرين تبضن أيا الله هرمرينيا وامده من المصالح ومصالح ذا كمذا. فإن تزاحم هدي إسعريريان عدد المصالح مصالح ذا الترضوضة هدي إسعريريان يقدم وحال هرمرين الأعلى مد سرين تبضن أيا الله هرمرين ومن المصالح مصالح ذا كمذا ماش الله مصلحه أيا إسهيستا كوما سورو بيان إناد لبدا بهالمر سميسو حدبا محال سمين شريعة waxay ku leedahay samee midda sareynta badan midda kalena ka tag wax dambi ka soo gaari maaye maxaa yeelay waad ku qasban tahay inaad samayso mid ogow masaalixdu waxay masaalix un ahaanaysaa markay laba waajib isla yihiin iyo inay waajib iyo sunno isqabsada yihiin ama laba sunno isqabsada yihiin ama shay mubaaxa iyo shay sunno ah isqabsada yihiin masaalixdu inta mid kamida ayay ka timaadaa haddaba inta mid kamida hadday isqabsadaan waxaa la horumarinayaa midda sareynta badan bal tusaale aan u keenno hadalkan niri annagoo u soo qaadanayna cibaadada bal aan dhahno waxaa isku kaa qabsaday salaadii waajibka ahayd iyo midda nadarka ah tan waajibka ah waa tuu ilaahay kugu waajibiyey tan nadarka ahna waa tii aad adiga naftaada ku waajibisay marka hadday isqabtaan tee la horumarin waxaa la horumarinayaa midda sareynta badan tusaale masjidkii baad soo gashay adigoo salaadii nadarka ah tukan raba markaa soo gashayna waaba la aqimay tan nadarka ah waajib bay kugu tahay inaad tukato salaada kalena iyadana sidoo kale marka labadaba inaad tukato waa waajib laakiin tee la horumarin waxaa la horumarin miduu ilaahay kugu waajibiyey maxaa yeelay midaasaa ka sarraysa صدق الصادق عندما قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة لكن أديكو صلاة دي نذرك كجرو هدي الله أقيمه أو صلاة دي نذرك أتسيد من ربتي فعليك إن الصلاة سيئات فضي سوي وحلقي يابا إن أويدسو بل كورن هدي أن لبدا بهالمر ودا سمين كرو جوابته حين قنيسا هدي أد ودا سمين كرتو marka isma wada haystaan qaacidaduna waxay ka hadlaysaa markay is wada haystaan qaacidadii hore oo aan soo mareynay ad-diinu mabniyun ala al-masalih fi jalbiha wad-dar'i lil-qaba'ih qaacidadaasi ay qaacidadan furuuc tahay yani qaacidadii hore ayaa wax dhashay waxay dhashay qaacidadan aan maanta aqrisanayno fa inta zaham adad al-masalih yuqaddamu al-a'la min al-masalih ayaa la dhalay yaa dhalay qaacidadii hore ayaa dhashay marka qaacidadan waa qaacido aad u guda ballaaran baab walbana way geli hadda cibaado ayaan tusaale u soo qaadanay nikaax hadii laga hadlay waa sida jinaayadka sidaas oo kale nafaqada iyo wixii la mid ah tusaale ahaan hadday isqabato nafaqada xaaska iyo nafaqada qaraabada waxaa la horumarin nafaqada xaaska iyo ciyaalka kadib ayay qaraabadu imaanayaan maxaa yeelay فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح هذه مصلحة متعدية يعني روح أن كوكوبنين نفع جذا هي مصلحة روح كوكوبا هذه إسقبتان انت بدن وحا الله مريا مصلحة متعدية أو أن روح كوكوبنين تصالح وحا اسكوكا قبطي إناد سنتو كتو إيو إناد دتك وحبرتو مركا كي الله مرين waxaa la horumarinayaa inaad dadka wax barto maxaa yeelay waa maslaxo aan adiga ku koobnayn inaad sunno tukato iyo inaad dadka soo booqato ayaa la horumarin maxaa yeelay
nafcigeedu ayaa u gudbaya oo aadaya aadanaha kale laakiin mid ogow asalku waa sidan soo sheegnay laakiin marmarka qaarkood waxaa dhici karta kii fadliga badnaa in laga fadli bato siduu leeyahayba ibnu qayyim marka salaada laga baxo inaad adkaar akhriso iyo inaad quraan akhriso keebaa fadli badan markaasi adkaartaa fadli badan aadinkii baa socda inaad quraan akhriso iyo inaad aadinka ajiibto keebaa fadli badan aadinka inaad ajiibto ayaa fadli badan وضده كالد كيسو مصلحة عكسجيد وحاوي تزاحم مفاسدي أو اسعري رذوي يرتكب والفولي يعني لصمين الأدنى مده سين تبضن أو من مفاسد كمذا قاعدة ذي هوري وحيكها الليسي مصلحة هدي اسعري رذو محال صمين tanna waa cagsigeeda oo waxay leedahay mafsadadu haday isciriirido maxaa la sameyn mid ogow mafsado inta badan waxa la yiraahdaa waxyaabuhu ilaahay xaaraantinimeeyay iyo waxyaabaha makruuhaadka ah shaygu haduu xaraam yahay ama makruuh yahay oo uu sharcigu karaahsaday waxaanan shaki ku jirin inay mafsado ku jirto haddaba laba xaaraan ama laba makruuh haday isku ka qabtaan sidee la sameyn midkoodna aad ku qasban tahay sameyntiisa qaacidadii hore maslaxada midda sareysa ayaa la sameynayay midana waa cagsigeeda mafsadada midda hooseysa ayaa la sameyn waa meesha culimadu leeyihiin irtikaabu akhaffu dararayn laba dib haday isku ka qabsadaan waxa la sameyn midda fudeydka badan dibna ka soo gaari maayo xaraam ba ha ahaatee xaaraantaasi sameynteedii hadiiba aad mid kale oo ka weyn kaga cararayso xaaraantaasi xaraam ba ha ahaatee marka adiga lagu fiiriyo xaraan ma aha mubaaxaadka galaysa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim hadalkan niri bal tusaalan u keenno hadii ay isku ka qabsato shay ay shubha ku jirto oo aysan xaaraantiisa cadayn iyo shay xaaraantiisu iska cadahay keebaa sameyn waxa sameynaysaa shayga ay shubhada ku jirto kaasad ku qasbantahay inaad sameyso tusaale kale haddaan ku darno balan u soo qaadanno ninkii masjidka ku kaadiyey ninkaas reer miyiga ah waxay saxaabada arkeen isagoo masjidka ku kaadinaya weliba ay dhaxda u marayso markaasay saxaabada ku qamaameen nabiga wuxuu yiri daaya kaadidiisii markuu dhameystay baa loo yeeray nabiga wax buu baray wuxuu yiri halkan waxa Allah masaajid waa lagu tukadaa ninku waa acraabi masjid ma yaqaano maxaa yeelay hadduu soo islaamay marka waa su'aale in masjid lagu kaadiyo mafsado soo maaha marka maxaa faraha looga qaaday maxaa yeelay mafsadadaasi mafsado ka weyn baa looga hortagayaa waa su'aale haddii kaadida lagu kala gooyo maxaa dhici lahaa bal wixii dhici lahaa aan tirino kow waxaa dhici lahaa in kaadida ku kala goodo isagana ku dhibaatoodo waa laba waxaa dhici lahaa haddii uu kaadida la cararo ilaa waa nin la ceersanaye inuu kaadida jirkiisa iyo dharku xirnaaba iskaga hadleeyo waa saddexe masjidkiina kaadidii ku sii hadleeyo kolkii hore hal meel unbuu ku kaadinayay haddaba hashaasi mafsado meeqaal lagaga hortagay hal meel unbuu ku kaadiyey hashaas meel uu ku kaadiyeyna biyo ayaa lagu shubi oo lagu rushayn sidoo nabiga sallallahu alayhi wasallam uu amrayba tusaalooyin badan way jiraan marka insha Allah ta'ala tusaalooyinka halkaas aan ku soo koobaynaa fa in tazaham haday isciriirido adadul masalihda tiradooda yuqaddamu waxa la hormarin al-a'la midda saraynta badan ayaa la hormarin oo min masalihda kamida وضده كالد كيسو مصالحda cagsigeedu waxa weeye تزاحم مفاسدي oo isciriirada weeye yurtakabu waa la fuuli yani yurtakabu waxa laga wadaa waa la sameyn ayaa laga wadaa yurtakabu
والله سمين الأدنى مده سين تبضن أيال سمين أو من المفاسد مفاسد كمذا أحبابي حلقة سديدات هل كاسن كسوكو بينا حلقة سقالات الله نو كل ميو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته